waxaad ogtihiin dadka reer galmudug meel kastay joogaan dagaalka cadowga argagixisada ah ee amniga iyo xasiloonida iyo nolosha ka soo horjeeda lagula jiro waa laga wada qayb galay ilaahay fadligiis waxaana lagu xoreeyay degmooyin iyo deegaano muhiim ah oo ay dhibaato muddo dheer ku hayeen cadowga argagixisada ah maantay inaad dagaalkii meel kasta uu ka socdo annaga dagaalka cadowgaas lagula jirahay waa isu kaano mid waa lagu jiraa meeshii uu ka socdana reer galmudug qayb bay ka yihiin waan ka qayb qaadanayaan dhammaanna waa bogaadinaynaa walaalaha iyo deegaanada iyo ciidamada qalabka sida ee qaybahooda kala duwanna waxaan leenahay meel walbay joogaan guul baan u rajaynaynaa deegaanada hadda sida gaarka ah ay baryahan dambe isku dayga ilaahay idankii fashilmay siina fashilmi doona laguna guulaysan doona ay ka wadeen oo ay ugu dambeeyeen deegaanada hirshabeelle reer galmudug qayb bay ka yihiin meel kasta oo dagaalka argagixisada ka socdana mid baan u nahay si wada jir ahna la dagaalamaynaa wixii ciidamo iyo ciidamadiina waa ka qayb galeen gacantii kale oon geysanayno oon geysan karana waa geysanaynaa waxna kala hari mayno meel kastoo dagaalku ka socdo waxaan sidoo kale halkaan rabo runtii inaan ka bogaadiyo dowladda iyo dadka reer puntland dagaalka ay kula jiraan qaybo ka mid a argagixisada oo ay guulaana ka gaareen waxaan leenahay ilaahay idankii guulaysta waa guulaysateena dhammaystirka layskala qayb galaan leenahay waxaan leenahay soomaali meelay joogtaba cadowgaas argagixisada ah qofba intuu kari karo ha uga qayb qaato ha uga qayb galo la dagaalankooda iyo dalka in laga xoreeyo maxaa yeelay soomaali meel ay xasilooni iyo dowladnimo iyo in ay dalku hore u socdo ay u ogol yihiin ma jirto meel gaara oo ka badbaadaysaana ma jirto sidaas darteed meeshay joogaan intay ka maqan yihiinba waa in si midnimo ah looga wada qayb qaataa dagaalkaas alxallaawayaasha lagula jiro sidoo kale waxaan rabaa inaan idhaahdo isla amniga si gaar ah hay-adaha dowladda galmudug gaar ahaan hay-adaha amniga gobollada iyo degmooyinka inay xil isaga saaraan inay cadowgu iska hor keenaan bulshadeenna oo aada ogtihiin inay dhaqamadooda xun ka mid tahay oo ay ku howlan yihiin in aada iyo aada loola dagaalamo looga foojignaado oo isku dhacyada iyo dhibaatooyinka ay ka abuuraan guud ahaan soomaaliya gaar ahaan galmudug waxay ka abuurayaan in isha lagu hayo hay-adaha amniguna xil gaara iska saaraan iyo mas-uuliyiinta ay sida gaarka ah u qusayso arrintaas waxaan rabnaa in dadka lagu ogaado ama qayb ka noqda dagaalkaas hurinta colaadaha in markiiba sharciga loo soo bandhigo hay-adaha amniguna ay ka howlgalaan argagixisada arxanka daran iyo kuwa ka shaqeeya amni xumada iyo dhaqan xumada iyo iska horkeenka ka shaqeeya ama xiriir bay leeyihiin oo u shaqaynayaan ama garashadooda xun bay kala mid yihiin argagixisada saas darteed waa in dadka ku lug yeesha arrimahaas si gaara iyagana loo dabagalo hay-adaha amniguna xil iska saaraan iyo dhammaan maxkamadaha iyo garsoorka taasna waxaan rabnaa inaan amniga aada iyo aad u bogaadino dadka dhibaatooyinku dhexdooda ka dhaceen ama waxyaaba u dhex mareen hadda muddooyin horena sida haddaba meelaha qaarkood fadhiyadii iyo kulamadooda lagu howlan yahay in waxaan rabnaa arrimaha dib u heshiisiinta la dhammaystiro oo aan cadowga loo noqon hiil oo aan bulshada la kala qaybin oo bulshada la kala jabin wadajirkeeda iyo midnimadeeda iyo xooggii la gelin lahaa argagixisada